waxaan hambalyaynayaa sanad guurada 36aad ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya ilaahayga nagu soo gaarsiiyay 36aadkeedii ilaahay baa mahad iskale ilaahay baa barwaaqada na gaarsiiyay ilaahay baa noo sahlay inaanu waddankanagii iyo dibadda daafaha caalamka meel walba aanu ka dabaaldegayno aanu ku xusayno annagoo marxalado kala duwan ku soo maray Ogaadeenaya gudaheeda waxaan xusuustaa 8 sano oon jeel Ogaadeen ku jiray oon gudaheeda ku xusay baan xusuustaa oo nooceen u xusu jiray waxaan ku xusu jiray caag yar oo caagaga biyaha laga cabaa yaa waxaan gelin jiray tooshkaasaan ku xusu jiray sanad gurada 15 August lama dareemi jirin ilaa heer ay gaadhaan godka gudihiisa ay ku ogaadaan dabadhilifka gumaysiga Ethiopia nimankii u shaqayn jiray kooxdii Cabdiilay ilaahay ha hanuuniyaan leeyahay nimankii dhibkaan ogaa geystay wali bulshada ku dhex jiraan laakiin waxaan leeyahay hal la iscafiyo midnimada ka muhiimsan wixii dhacay waa dhacay hal la halmaamo malihi cid kastoo shakhsigii dambi ka galay wuu og yahay isagay u furan tahay inuu dacweeyo iyo inuu cafiyo laakiin anigu waxaan ku talinayaa in la iscafiyo gacmaha la isqabsado midnimo laga shaqeeyo halganku wali kow ma joogo wali maynaan gaadhin xorriyad maynaan gaadhin waxaan rajaynayaa inaynu gaadhi doonno xorriyadda aynu u dabaaldegno tan waxaa weeye ururka sanad guuradiisii xorriyadda Ogaadeenaya ilaahay hana gaadhsiiyo dabaaldeggeedana ilaahay waxaan ka baryahayaa inuu aniga oo nool oo caafimaad qaba i gaadhsiiyo xorriyadda Ogaadeenaya haddii aan gaadhi waayana ilmahayga in ilaahay gaadhsiiyo waxaan rajaynayaa halgankan dheer ee qori isu dhiibka ee ninba nin u soo dhiibahayay awowganagii labaad baa soo dhiibay awowgannu u dhiibay aabbahannu u dhiibay annagu noo dhiibay annaguna ubadkanagii baannu u sii dhiibaynaa ilaa xorriyadda laga gaadhahayo waxaa ballan ah inaan halgankaas u soconayaa qalin ha ku socdo qori ha ku socdo hadal ha ku socdo saxaafad ha ku socdo marnaba ma istaagahayo ilaa xorriyadda Ogaadeenaya calanka la sudho kan la taago Ogaadeenaya laga taago daafaha caalamka uu ka babbado isagoo xora marnaba ma istaagahayo ilaahay baanan ka baryaynaa ilaahay baanan ku xusaynaa ilaahay baanan ugu xamdiyaynaa ilaahay baanan ku xusuusanaynaa dhibkiina soo gaadhay iyo maanta heerkaannu marayno Ogaadeenaya gudaheeda in laga xusahayo taasaa mahad ilaahay lagu xamdiyaa ta kale dadkanaga waxaan xus u sheegahayaa ama madaxweynaha deegaanka ha noqoto ama ha noqdeen dadka shacabkaba midnimo inaad ogaataan midnimo ogaada dan baa inaga dhaxaysa danteenna inaynu ka shaqaysanno Ethiopia heerkay marayso waan aragnaa xaalad maantana waxaa wax lagu farxaa Ethiopia israamsanaysa meeshii ugu dhibaatada badnayd inay maanta ugu nabadgelyo badan tahay maanta Ethiopia iyo geeska Afrika oo dhanba meesha kaliya ee maanta amni lagu joogo inay tahay Ogaadeenaya ilaahay baa xamdiga iskale ilaahay baan ku xamdiyaynaa ilaahay baan ugu shukriyaynaa geeska Afrika xilli waxaan soo maray ruux kasta oo deegaanka Soomaaliyeed ee Ogaadeenaya ka yimaada ama Soomaaliya ha noqoto ama Ethiopia ha noqoto daafaha caalamka uu wanteed ka yahay oo la xayrsanayo maantana waa meesha kaliya ee lagu nabadgelayo mahadda ilaahay baa iskale
ninna xoog kuma keenin ninna kuma keenin rabbigiina abuuray baa keenay samir loo samray baa keenay halgan dheer oo dad aan ku weynay baa keenay waana ku sii soconaynaa dadka reer Ogaadeenya waxaan kula dardaarmahayaa naftayda iyo tiinaba alla ka cabsi samir badan midnimo in la wada shaqeeyo ama dawlad ha noqoto ama xisbiga oo leh hormuudka u yahay ha noqoto gacmaha la isqabsado ha la wada shaqeeyo Mustafa madaxweynow waxaan kugula dardaarmaynaa dhulkan adaa madaxweyne u ammaanta siyaasaduna way isbedbedelaysaa ummadaas dhibaatada soo martay oo lagaaga sheekeynayn oo adiga ku taabatay qoys ahaan ku taabatay shakhsi ahaan ku taabatay anii taabatay ruux walbana taabatay inaad xusuusnaato dadkaas waxay u baahan yihiin midnimo nabadgelyo ay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin walaalnimo iyo deganaansho inay sadir waxaanu barinaa gobani masaldhigatiyo samayna kuwaare ogosay salaano sanaduro wacanu saadaalinayno dadku wada sugaayo sumcad noo horseeday ogosay